barnaamijkeena maanta insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan ku eegno arrin yar oo hadda ka soo kordhay arrimaha dadka soo galootiga ah ee dalkan Mareykanka ku cusub. Waxa ay soo saareen maalinba maalinta ka dambayso waxaad moodaa maamulka madaxweyne Trump iyo asxaabtiisa inay soo saarayaan sharciyo cusub oo adag oo hadba jar kale ka sii ridayo arrimaha dadka soo galootiga ah. hase yeeshee waxaan isku daynaa insha allahu tacaala inaan soo gudbino waxyaabaha dadka faa'iidada u leh oo aan cabsida ahayn waana ka boodnaa badanaa waxyaabaha maaragtay dadka niyad jebinayo dadka derbi ka bood ha ahaadaan ama si kale ha u joogaan dalkan Mareykanka. haddii aan ku bilaabo maanta barnaamijkeena insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan ku eego arrin ka soo korodhay xagga immigrationka. nin oday ah oo u shaqeeya isaga USCIS ta ama United States Citizenship and Immigration Services oo loo yaqaano Matthew Tragesser ayaa waxa uu soo saaray qodob sharci ah oo uu la wadaagay USCIS ta. qodobkaas ayaa waxa uu ku sheegay inay rabaan inay ballaariyaan dadka la weydiin doono social mediaha ay isticmaalaan Facebooka, Instagramka, TikTokga, YouTubeka, waxyaabaha social mediaha ah qofka in uu soo gudbiyo. horey videoyo waa uga sameynay arrinkan waa uga hadalay laakiin waxa haddeer ku soo korodhay in waxa la raadinayo wax laga bedelay. markii hore waxa ay raadinayeen oo ay attention badan siin jireen dadka Facebookooda ama social mediahooda ku qora arrimaha ka soo horjeeda Israa'iiliyiinta, Yuhuudda, arrimahan ay sharcigan loo yaqaano anti-Semitism-ka oo dalkan Mareykanka looga yaqaano in aad leedahay maaragtay views ka soo horjeeda Yuhuudda. ha ahaatee hadda waxaa lagu soo kordhiyey arrin ah anti-American wax la yidhaahdo oo ah in aad Facebookkaaga ama YouTubekaaga waxaaga aad ku qorto arrimo ka soo horjeeda dalkan Mareykanka oo ah mid aad ka raadsanayso immigration benefits inaad ka hesho oo aad ka qaadatid sharci ama I-94 ha ahaado oo asylum ahaatid ama qof I-94 haystay oo green card raba inuu qaato oo permanent residency raadinayo aad ahaatid ama qof green card ka haysto oo raba inuu immigrationka uu ka qaato shahaadada dhalashada oo dalkan Mareykanka ah uu ka qaato. ninka odayga ayaa waxa uu soo qoray hadal cajiib ah. ma rabnu dhahay in aan siino dadka yasa oo nacab oo ka soo horjeeda waxa ay u taagan tahay dalkan Mareykanka inaan siino faa'iidada soo galootiga oo I-94 ka oo green card ka ama dhalashada ah. marka qofka ka soo horjeeda aragtiyada dalkan Mareykanka oo muujiya kuna qora social mediahiisa waxaan u sheegaynaa buu yiri in aysan wax sharciya dalkan Mareykanka aan looga ogolayn waana waxyaabaha ay baari rabaan. qof kasta oo haddeer waxay sheegeen application buuxsanayo in uu soo raaciyo social media handleskiisa Facebookkaaga, TikTokkaaga, YouTubekaaga iyo Instagramkaaga iyo hataa Snapchatkaaga. waxay fiirinayaan in aad ku faafiso waxyaabo ka soo horjeeda in dalkan aad u gafto oo aad maaragtay ka mid noqoto dadka maaragtay har iyo habeen habaaro Mareykanka oo gaar la ku rido gaalo waaye. waxaan dadka akhriya waa la ogaan doonaa baa la yiri in waxaana loo diidi doonaa oo ay saameyn weyn ku yeelan doontaa sharciga ay ka heli jireen dalkan Mareykanka. so haddii aad rajo ka qabto in aad apply garayso any of these benefits social mediaha waxa aad ku qortid waxyaabaha aad ku maaragtay ku faafisid sida videoyada aad samaysid commentska aad qorto hataa sharcigan markii la soo saarayay anti-Semitism-ka ah oo dadka ka soo horjeeda Israa'iiliyiinta oo sharcigan hore loo isticmaali jiray markii horeba waxaa aad iyo aad ugu nuxnuuxsaday haweeneyda qaabilsan iyada Homeland Security-ga Kristi Noem ayaa waxay si saa'ida maaragtay ugu tiiqtiiqsatay dadka ka soo horjeeda aragtiyada iyo viewska dadka reer Israel oo taageeradana u fidiya Hamas iyo
iyo maaragtay Falastiiniyiinta oo kale oo social mediahooda waxyaabahaas arrimaha noocaas ku saabsan ku qorqora waxay sheegeen ama ay sheegtay oo ku nuxnuxsatay in meel kasta oo ay joogaan ay uga dabagalayaan sidaas la mid ah waxay sheegtay in qodobka koowaad ee dalkan Mareykanka u yaalo kaas oo ah first amendmentiga freedom of speech inuu qofka xor u yahay inuu wuxuu doono ku hadli karo freedom of religion diintu rabo uu qaadan karo freedom to gather in dadka ay isu imaan karaan oo shirar ay qabsan karaan wax dembiya iyaga oo aan dowladda ka gelin arrimahaas qodobkaas koowaad ee dastuurka dalka Mareykanka qofka noogama dhuuman kara bay tiri dad adag baa soo baxay Steve Miller Kristi Noem ninka la yiraahdo Tom Harmon oo isagu ah ninka boordarada xukuma hadeer oo wax hadda soo galootiyo darbi ka soo boodaba la waayeba dad adag baa soo baxay madaxweynaha naftiisa iyo qolyo conservative ah oo republicaanka fogaaday ah oo aad iyo aad isugu taageerayo qorshayaalkan laga soo horjeedo dadka soo galootiga ah maalinba meel bay soo istaagayaan shalay sida xalay aan idin sheegay waxa ay completely joojiyeen dadka trakyada ku imaan jiray oo darawallada ka noqon jiray dalkan Mareykanka in visa la siiyo gabi ahaanteed waa la joojiyay so waxay ay joojiyeen CDL ama commercial driver's license visa based visa noocaas ahaa oo dadkii trakyada wadi jiray waxaan aad u soo dhaweeyay American Trucking Association way soo dhaweeyeen shirkad kale oo iyadana ku degan Canada iyadana oo xagga trakyada xuquuqdooda u doodo iyadana way soo dhaweysay arrinka isaga ah marka maalinba meel bay soo istaagayeen hadda waxaa soo kordhay qodobkaas dhahayo qofka America arrimo ka soo horjeeda ama fikir ahaan aan taageersanayn oo waxyaabo viewskiisa ay ka soo horjeedaan Amerikaanka markii hore Yahuuday ahayd hadda waxaa lagu soo daray Amerikaanka waxaa loo diidayaa in sharci uusan ka qaadan karin dalka Mareykanka taasna waxaa soo saaray Matthew Tragesser nin madax ah oo isagu qayb weyn ka haysta USCIS ta ama qolyaha applicationka u process gareeya xagga immigrationka dalkan Mareykanka haddaba waxa ay awoodda dhan isugu geynayaan qofka immigration officerka ah bay gacanta u geliyeen awoodii isaga inuu go'aan ka gaaro markasto oo la rabo in applicationkaaga uu fiiriyo social mediahaaga uu fiiriyo oo uu dabagal kugu sameeyo background checkaaga marka uu ku marinayo qofka waxa awood loo siinayaa in uu isaga oo aan waxba ku sharaxin ku diidi karo sharciga arrinkan arrin cusub waaye waayada hore ma dhici jirin haddii ay wax ka qaldamaan marka hore waxa dhici jirtay in warqadda intii lagugu soo celiyo ama applicationka lagugu soo celiyo ama fiigii aad bixisay oo ay wax ka qaldanaayeen lagugu soo celiyo in la dhihi jiray soo sax applicationka soo sax warqadahana ka dhiman soo sax canshuurtana lagugu leeyahay ma aadan bixinin soo sax waxaan oo dhan waxay ahaan jirtay waxa jiri jiray second chance third chance fourth chance yaa la bixin jiray laakiin haddeer waxaad moodaa nimankan inay ka go'an tahay in ay soo jeensadeen oo ay ka go'an tahay in qofna aysan wax naxariisa u gelin awoodana gacanta loo geliyay qofka immigration officerka ah oo isagu awood u leh in uu go'aan ka gaaro qofka ama sharciga loo diido ama la siiyo haddii marka waxa soo baxday ayaan dhaweyto waataan video horena ka sameynay waxa soo baxday qofka darbiga ka soo booda qofka status uu ku joogay ama temporary protected status TPS program ka ahaado qofka wax uun ku joogay meeshan dalka oo statuskaas lose gareeyay oo waayay sida hadda dadka aan ka sheekeynayna habeenkii dhaweyto oo kale Venezuela Costa Rica iyo Nicaragua iyo Haiti 700,000 oo qof oo Biden uu keenay oo ku keenay TPS programka ayaa waxa ka dhacayo TPS programkii ahaa oo ay ku joogeen dalka Mareykanka taasna waxa ay keentay baa la yiri inay noqdaan statusless oo wax status ah aysan ku lahaan doonin dalka haddii marka aad statuska aad ku joogtay ama TPS ki ha ahaado ama asylum ki ha ahaado ama qof refugee ah aad ahaatid hadaa lose garayso oo aad isku daydo waatay lahaayeen inaad qof American citizen ah aad ku qaadato sharci oo aad guursato
ama xaas ahaw ama maaragtay say ama oday midkaa doonta ahawe haddii aad isku daydo inaad sharci ku qaadato qof Amerikaan ah arrinkan haddii officerka marka oo hadda saan idin sheegay awoodda ugu badan la siinayo qofka immigration officerka ah haddii uu deny gareeyo case-kaaga waxa ay isku dayayaan inay kugu bilaabaan waxa loo yaqaano removal processkii dalka lagaaga saari lahaa oo lagaaga remove gareyn lahaa dalka marka awood fara badan baa waxaa lagu soo wareejiyey sida hadda muuqato immigration officerska baa waxaa la siiyey awood fara badan oo ay wax ku deny gareyn karaan waxna ku diidi karaan ama waxna ku ogolaan karaan marka awooddaas waxa ay maaragtay caddaynaysaa in social mediahaga marka la jeegareeyo haddii wax laga helo Amerikaanka ka soo horjeeda fikirkooda haddii laga helo wax ka soo horjeeda qolyahan koofiyad yarta ah fikirkooda waxaa dhici doonta in dad fara badan loo diidi doono in ay sharciga qaataan dalkan Mareykanka haddii lagu deny gareeyo marna waxaa dhici karto in removal process lagu bilaabo tan kale hal story oo aan rabo inaan idinka dabageeyo asxaabta ila socota waa mahadsantiin dhammaantiin halka story aan rabo inaan idinka dabageeyo waxa waaye ninkii odayga ahaa oo sida qaldan El Salvador loogu tuuray waagii dhoweyto looyarada markay ka hadleen maxkamadihii immigrationka markay soo farageliyeen kuwii federaalka ah markuu soo farageliyey ninkii odayga ahaa waa la soo celiyey Mareykanka lagu xiray haddana markii wax sharci dambiya lagu waayey of course waa la soo sii daayay maanta waxa ay ka hadlayaan today marka ninkii Abrego ahaa in ay geyni doonaan intay mar kale dib u qabtaan inay ka tuuri doonaan Uganda maadaama isaga asalkiisa hore uu El Salvador ahaa oo meeshaasna kuwii gangska ahaa iyo Venezuela iyo waxaas lagu dhex daray marka dood adag ayaa ka dhacday maxkamadihi ayaa ka shaqeeyay judge federal ayaa ku dhagay oo dhahay ninka ilaa in la soo celiya ninkii odaga waa la soo celiyay xabsi kale sii geliyeen xabsiga hadda maanta ka soo sii daayeen waxa la dagaalamaba looyarkiisa hadlaayay wuxuu lahaa ilkaha iyo miciyaha tooth and nails baan ku dagaalamaynaa buu yiri in aan ka badbaadino in ninkan aan la geynin wadanka Uganda dadka hadda waxay bilaabeen inay third party countries wadamo kale saddexaad ay geeyaan sida kuwa inta dhaweyta la geeyay South Sudan oo kale kuwa oo South American bay ahayn dadka la geynaa South Sudan laga daadiyay kuwa South Africa la geeyay kuwa la geeyay Eswatini wadanka la yiraahdo oo South Africa agteeda ah laakiin ninkan odayga ah wuxuu u dhashay asalkiisa El Salvador waa laga soo celiyay maadaama uu dareemayay in dawladda ay ka soo horjeedo oo cabsi halka ka qabay saddex cunug baa inta u joogta warkiisa maanta soo baxay saddex cunug waa American intayna ku dhasheen waxa ay kulay ku daba jiraan dambi hore oo uu galay arrinkan marka arrimaha immigrationka aad bay baryahan u adag yihiin waxa ninka odayga ah hadda ay u qalqaalinayaan in Uganda laga tuuri doono so I don't know say u shaqayn doonto in laga tuuri doono in kale laakiin hadeer sheekadii maxkamadda sare ugu sareysa dalka Mareykanka waxay ku raacday Trump iyo xirtiisa in qofka ay geeni karaan third party country ama wadan kale oo uusan u dhalan oo saddexaad Salvador buu u dhashay Mareykanka uu ku noolaa Uganda la raba in la geeyo Afrika laga tuuro marka arrinkaas baa jira arrimuhu hadda waa iska adag yihiin laakiin arrinkan ayaa hadda ku soo kordhay qof walba waxa iska ilaalisaa social media waxa aad ku qoraysid haddii aad rajo ka qabto in aad Mareykanka ka apply garayso in aad ama timaado oo ama qof ha ku keeno oo family ahow oo xaas lagu keeno ama waalidka iyo familka ha ku keenaan laakiin haddii rajo ka qabto meeshan inaad timaado sharcina ka qaadato 4 sano waa inaad iska ilaalisaa waxyaabaha dhibaatada kugu keeni karo si fudud yaan loo gelin arrimaha social media waa la sheegarayn doonaa qof walbo waxaana go'aanka iska leh immigration officerka sida aan idin sheegay marka waad mahadsantihiin inaad igala soo qayb gashaan live-kan I know it's not perfect video la soo diyaariyay ma aha laakiin waa xog waraysi iyo inaan golof kafuul isaga tuurno oo hadba wixii soo kordho aan iskula wadaagno meeshan haddaan ugu cusub tahay subscribe to the channel